Dhalinyarada maanta waa laf-dhabarta bulshada, waa rajada berri, waa awoodda wax ka beddeli karta mustaqbalka. Laakiin su'aasha muhiimka ahi waxay tahay, maxaa sababay in dhalinyaro badan maanta ay niyad jabaan? Markaad eegto dhalinyaro badan, waxaad arkaysaa qaar badan oo gudaha ka daalan, qosol ayay muujinayaan. Laakiin qalbigooda waxaa ka buuxa walwal, cabsi iyo fikir badan. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee niyad jabka dhalinyarada waa isbarbardhigga nolosha dadka kale. Baraha bulshada qof walba wuxuu ku soo bandhigayaa guulihiisa, lacagtiisa, safaradiisa iyo noloshiisa quruxda badan. Laakiin dadka badankood ma muujiyaan dhibaatadooda, ma muujiyaan habeenadoodii ay ooyayeen, ma muujiyaan guuldarrooyinkoodii. Qofka daawanaya wuxuu moodayaa in dadka oo dhan ay guulaysteen, isaga mooyaane. Taasi waxay dhalisaa murugo iyo kalsooni darro. Qofku wuxuu bilaabaa inuu is yiraahdo, aniga maxaan weli u guulaysan waayey? Laakiin dadka ila daadaahi maxay iiga hormareen? Runtase waxay tahay, qof walba wakhtigiisa ayuu leeyahay, guushu qof kale ma leh. Macnaheedu ma aha inaad adigu fashilantay. Sababta labaad waa shaqo la'aanta iyo cadaadiska nolosha. Dhalinyaro badan waxay leeyihiin riyooyin waaweyn, laakiin waxay la kulmaan fursado yari. Laakiin mararka qaar albaabadu way ka xirmaan. Marka qofku muddo dheer isku dayayo isagoo aan wax natiijo ah arkin, qalbigiisu wuu daalaa, rajadiisuna way yaraan kartaa. Sidoo kale waxaa jira dhalinyaro badan oo aan helin qof dhiirrigeliya, qof fahmaya dhibkooda, qof ku dhaha waad awooddaa. Mararka qaar hal eray oo wanaagsan ayaa qof badbaadin kara. Laakiin nasiib darro, dad badan waxay maqlaan dhaleecayn ka badan dhiirrigelinta. Waxaa kale oo niyad jabka keena fikirka badan iyo cabsida mustaqbalka. Dhalinyaro badan waxay ka walwalaan mustaqbalkooda, lacagtooda, guurkooda, shaqadooda iyo noloshooda guud ahaan. Marka fikirku bato, qalbigu wuu cuslaanayaa, qofkuna wuxuu dareemayaa inuu keli yahay. Laakiin hal shay waa muhiim in la fahmo. Noloshu qof walba way imtixaantaa. Qof kasta wuxuu leeyahay dagaal u gaar ah. Qofna ma haysto nolol quman. Haddii maanta aad niyad jabsan tahay, taasi macnaheedu maaha inaad daciif tahay. Waxay ka dhigan tahay inaad soo martay wax badan. Ha isbarbar dhigin dadka kale. Safarkaaga adiga ayaa leh. Guushaaduna waxay imaan kartaa waqti aadan filayn. Naftaada ha dhibcaan, sababtoo ah weli maadan gaarin meeshii aad rabtay. Geedku ma baxo hal maalin gudaheed. Wax walba waqti ayay qaataan. Alle u dhowow, ducayso, naftaada qiimee, ka fogow dadka tamartaada liidaya, la saaxiib dadka ku dhiirigeliya. Xasuusnow, dad badan oo maanta guulaystay, shalay way niyad jabsanaayeen, way ooyeen, way quusteen, laakiin ma aysan joogsan. Adiguna ha ka joogsan riyadaada. Waxaa laga yaabaa inaad maanta aad mugdi ku jirto, laakiin berri iftiin ayaa kuu bixi karaa. Sababtoo ah qofka aan quusan ugu dambayn wuu guulaystaa. Adiguna waxaad ka mid noqon doontaa haddii aadan quusan oo aadan isdhiibin qofka guulaystay. Waxaan idin rajaynayaa guul iyo badhaadho dhalinyaro.